Assalaamu calaykum. Marka aad maqasho dalka Jabaan, durba waxaa kuu sawirmaya duni ku horumartay tiknoolajiyada casriga ee maanta iyo dal ka mid ah kuwa ugu tunka weyn dhaqaalaha adduunka. Taasina ma ahan mid kugu cusub, waayo ereyga Jabaan waxaad maqli jirtay tan iyo xilligii aad yaray. Halhayska ugu badan aad maqli jirtay xilligii aad yareed waxaa ka mid ah waxaad tahay nooc min al-Jabaan oo loola jeedo waxaad leedahay sifo ka mid ah sifooyinka dalka reer Jabaan. Markii aad soo weynaatayna waxaad aragtay agabyo badan oo hareerahaada yaala oo lagu leeyahay waxaa laga keenay dalka Jabaan. Laga bilaabo shayga ugu yar ee gacantaada aad ku haysid sida rumuudka dhalada gurigiina taala iyo gaadiidka aad ku socoto sida Nissan, Toyota iyo kuwa kale oo badan. Waana sababta Jabaan ay ugu duwan tahay ama ay ugu soocan tahay dalalka kale. Ha yeeshee guusha uu gaaray dalkani kuma dhalan, laakiin kaliya waa waxa ay iyagu xoogga saareen. Waxaa la yiraahdaa mararka qaar waxa ka muuqda bannaanka way ka duwan yihiin waxa gudaha ka jira. Waxaan ula jeedaa midaasi Jabaan sida ay dunida ka aaminsan tahay oo ah dal wax soo saarkiisa iyo dadkiisa ay isleeyihiinba, mise waxaan arkayna gudaha bulshada ayay ka yimaadeen. Soomaalidu waxay tiraahdaa weel walba waxa uu dhididaa inta uu qaadkiisu la eg yahay. Waxaan kaaga marakici doonaa in guulaha muuqda uu dalkaasi horumaray uu gaaray looga qiyaas qaato sida uu eg yahay waaqica ka jira gudaheeda. Haddaba maxay tahay sirta qarsoon ee guusha dalka Jabaan? Su'aashan had iyo jeer dunida kale ee Jabaan la tartamaysa waxay u raadin jireen jawaab ku habboon. Inkastoo la og yahay in sirta sancadeedka mashiinka reer galbeed ay kala yimaadeen dalkaas Jabaan, haddana waxaa isweydiin mudan sida dalkani dhaca Aasiyada shisheeye uu xawliga ugu tagay dunida kale. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaarihii Jabaan ayaa mar la weydiiyey sirtooda, waxa uuna ku soo koobay 3 sifood oo kala ah: cilmi, camal iyo akhlaaq. Siinta ahmiyad weyn aqoonta iyo howlgalka ama waxqabadka waa mid dunida horumartay ku hogaamisay heerka maanta ay joogaan. Hase yeeshee dheeraadka dalka Jabaan u raacsan waa akhlaaqda ama dhaqanka suuban. Loolanka dunida ku wada jirto waxaa kaliya ku guulaystaa midkii wax dheer kuwa kale. Haddaba muuqaalkeenna maanta waxaan ugu hadli doonaa dhaqamada ugu waaweyn ee ku horumaray dalkaasi Jabaan. Ku soo dhawaada muuqaalkeenna maanta. Nambarka koowaad ama dhaqanka koowaad uu ku horumaray dalkaasi waa ilaalinta waqtiga. Dadka Jabaan waqtiga uma sheegaan inuu muhiim yahay. Waxay ku yiraahdaan waa aniga midka go'aansanaya muuqaalka aan rabo inaan bulshada ku dhex yeesho. Adigu kolley iyo kolleyba ilama joogaysid, sidaa darteed aniga ayaa ku maamulaya. Daqiiqad walba waa mid u xisaabsan. Waxay wax liita u arkaan waxay dunida kale u taqaano nasiib oo ah in wax ka badan 6 ilaa 7 saac uu qofka iska jiifo. Sidaa darteed waqtiga waxa uu noqday waxa gacantooda ku jira oo ay iyagu maamulaan. Goobaha shaqadu waxay ku furmaan kuna xirmaan muddo waqtiyeysan. Gaadiidka la raaca waxay ku imaadaan jadwalkii loogu talagalay, mana ka soo dib dhacan xitaa daqiiqad. Nambarka labaad ama dhaqanka labaad uu dalkaasi ku horumaray waa ixtiraamka. Waxa la yaabka leh waa in dalka Jabaan lagu sifeeyo ummad huban qadarin dabiici ah. Waxay caada ahaan madax u raariciyaan qof walba muwaadin iyo shisheeye jooga dalkooda. Cunsuriyadu boos kuma lahan gudaha Jabaan. Dhoolo cadeyntu waa hadiyad maalinle ay u hibeeyaan qof kasta. La macaamilka qofka macaamilka waa muqaddas. Goobaha waxbarashada iyo shaqooyinka ayaa kuwa ka buuxo ixtiraam. Ardayga Jabaanka marka la rabo in loo yeero waxaa magaciisa laga hormariyaa ustaad, mudane, aqoonyahan iyo wixii la mid ah oo loogu muujinayo heerka uu bulshada ka joogo iyo kaalinta mustaqbalka looga fadhiyo ardaygaas. Nambarka 3 ama dhaqanka 3 uu dalkaasi ku horumaray waa amaanada. Haddii aan ku dhaho tuug wax dhac lagama yaqaano gudaha Jabaan, fadlan hay saluugin. Ummad walba sida loo leeliyo naf ahaan iyo sida loo abaabiyo markay yar yihiin. Bilowga hore ee dugsiga ilmaha la keenayo waxyaabaha ugu weyn ee kobciya waxaa ka mid ah ilaalinta ballanta iyo amaanada. Waxaa loo tilmaamaa in qof xaqiisa uusan mudnayn in qof kale la weedaariyo ama la siiyo. Waxay leeyihiin halku dhigyo ah nothing gets lost in Japan oo loola jeedo
waxba kuma lumaan gudaha Jabaan, mana ahan mid ku xiran ilaalada kaamirooyinka gaafmeere ee looga dhigay jidadka iyo xarumaha waaweyn oo qofka ku qasbaya inuu ku celiyo waxay uu helay qofkaas. Waxaa celinaya dareenka qalbiga, mid walba oo baadi ka hela meel waxa uu isku dayay inuu kiilaha uu ku simo, haddii uu waayana uu ugu dhiibo laanta ammaan ama booliis ee ugu dhow. In qofka damiirkiisu celi ayaaba ka sharaf badan in amiirka uu ka cabsado, waana dhibta ina haysata. Markii nabigeena sallallahu alayhi wasallam la su'aalay goorta ay qiyaamuhu dhacayso, waxa uu yidhi haddii ammaanada la dayaco. Maanta isweydiin uma baahna in ammaanadu ay sugan tahay iyo in kale. Nambarka 4 ama dhaqanka 4 uu ku hormaray dalkaasi Jabaan waa sida ay ula dhaqmaan shaqaalaha nadaafadda. Tani waxaan u dhigay si gaar ah waayo waxaan ogahay siday xasaasi ugu tahay marka la joogo Afrika iyo dalkeena Soomaaliya. Sideedaba dal bilicla iyo dad caafimaad qaba waxaa dhalin kara hawl adag oo ay hagar la'aan u qabtaan nadaafadleyda. Heerka deegaan quruxsan ee dunida isku dhaaftay waxaa markasta laga fiiri qaataa heerka ixtiraam iyo qadarin la siiyo shaqaalaha nadaafadda. Jabaan dabcan waa dalka ugu fiican ee la dhaqanka nadaafadleyda. Ugu horreynba magaca loogu yeero ma ahan midka dunida kale la yiraahdo. Waxaa lagu sifeeyaa hindisiyaasha caafimaadka ama sanitary engineers. Dalka Jabaan shaqada nadaafadda waxaa loo galaa imtixaan iyo tijaabo caafimaad oo haddii aadan ku soo bixin aan lagu qaadan doonin. Waxaa intaas dheer mushaarka hindisiyaasha caafimaadka ama nadaafadleyda waxa uu ka badan yahay $8,000 bil walba. Taasi waxay keentay in shaqada ay hayaan noqoto mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan looguna jecel yahay in laga shaqaysto. Sidoo kale shaqaalaha dhismada iyaguna waa la mid oo waxaa loola dhaqmaa sidaasi. Nambarka 5 ama dhaqanka 5 uu ku hormaray dalkaasi waa xiriirka ka dhaxeeya qashinka iyo bulshada. Waxaa si gaar ah ii xiisa geliyay intii aan sheekooyinka sireed raadinayay waxaa ka mid ah kalimad cajiib oo oranaysa Japanese garibag doesn't smile oo loola jeedo qashinkeenu haddaynu Jabaan nahay ma ahan mid ura. Urka iyo kamkamka ka soo haada qashinka waxay ku xiran tahay hadba heerka ay la eg tahay qoyaanta qashinkaas. Mid kasta midka uu ka qoyan yaryahay ayuu ka ur yaryahay. Dalka Jabaan marka la fogeynayo qashinka ur la kahdo kama soo baxaan, waayo marka horeba waxa la fogeynayo waa kuwa laga soocay dareere kasta oo ur keeni kara. Nambarka 6 ama dhaqanka 6 uu ku hormaray dalkaasi waa wax akhriska. Siinta ahmiyadda cilmigu u baahan yahay waxay ku timaadaa akhriska badan. Akhriskana waa tilaabo ay ummad isku dhaafaan. Jabaan waa halka laga qadariyo akhriska. Jahligu boos kuma laan dhexdooda, waayo qof kasta waa aqriye aan meel iyo muddo cayiman aan ku xirin akhriska. Ka soo tag dugsiyada iyo maktabadaha laga bilaabo gaadiidka la raaco, goobaha lagu kulmo xitaa dabjirka wax badan ayay akhriyaan. Waxaad mararka qaar arkaysaa dad meel wada socdo badigooda buugaag sare joog ku aqrinaya. Nambarka 7 ama dhaqanka 7 uu ku hormaray dalkaasi waa sida ay ula dhaqmaan dadka qaba baahiyaha gaarka. Ummad walba oo meel ku wada nool waxay wada qabaan baahi, waxayse ku kala duwan yihiin noocyada kala duwan ee baahi ay haysata dadkaas. Dadka qaba baahiyaha gaarka ee lixaadkooda ay ka maqan yihiin, Jabaan waa dalkii ugu horreeyay ee u sameeyay hindise inay iskooda isku filnaadaan oo aysan u tuugsan dadka kale. Qofka aragga la ee ku nool dalkaasi Jabaan waxa uu min guri ilaa goobta shaqada iyo waxbarashada uu u danaystaa kaalmo la'aan. Waxaa loo sameeyay jidad u gaar oo ay maraan tan iyo sanadii 1974. Go'aankaasina waxa uu yimid kadib markii haweeney indhal ahayd uu dardaray tareen. Tusaalayaasha badan ee muujinaya akhlaaqda dalka Jabaan waxaan ka soo qaatay kaliya wax yar. Waxaase hubinti ah inay intaasi ka badan ku dhaqmaan. Waxa ugu muhiimsan oo dalkaasi ku hormaray waxaa ka mid ah dhaqanka suuban ama akhlaaqda. Akhlaaqda waa waxa ugu weyn ee ummadu ku hormari karto. Allah subhanahu wa ta'ala markii uu sifeynayay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku tilmaamay akhlaaq oo waxa uu yiri wa innaka la'ala khuluqin 'azim oo ah waxaad leedahay oo lagugu abuuray akhlaaq weyn. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku amaani karay qurux, waxa uu ku amaani karay qabiil, waxa uu ku amaani karay sifo kale, laakiin waxa lagu amaanay rasuulka sallallahu alayhi wasallam akhlaaqda. Taasina waxayna tusaysaa akhlaaqda qiimaha ay leedahay. Sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri إنما بعثت لأتمم المكارم الأخلاق. aniga waxa la ii soo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqiyadkii hore u jiray. Waxa hubaala haddii aynu wanaajino akhlaaqdeen inaan gaari doono guulo badan oo aan ku hogaamin karno qeyrkeena, dunidana aan ixtiraam badan ka heli doono.